saddex negative Ceergaabo ka sheeg. Ceergaabo saddex negative ah. Waa meherada ugu quruxda badan uguna dhisaynka wanaagsan ee ka dhisan magaalada Ceergaabo. Cuntadan aad arkaysaa waxa laga sameeyay sabaayad iyo caano dhanaan iyo sonkor iyo subag. Waxaan galeynaa supermarketka ugu shidan magaalada Ceergaabo. Waa kan supermarketku waxaan ka soo iibsan doonaa ku soo dhawaada supermarketka ugu shidan magaalada. Meheradan ay imika joogno waxaan loo sameyn doonaa anagoo arkayna sabaayadii oo caanihii wixiiba lagu darayo. balkaale aan ku yar tusay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaad YouTube channelkayga Qaasi. Halkan caawa dhex joognaa magaalada Ceergaabo, magaalada madaxda gobolka Sanaag. sidaad arkaysaan magaalada Ceergaabo waxay bariyahan dambe caan ku noqotay amba aad loogu qurxiyay. Leedharkan aad arkaysaan oo iftiimin aad iyo aad u badan loogu sameeyay magaalada. waxaan sameyn doonaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan. muuqaalkaas aan ka sameyn doono magaalada Ceergaabo iyo waxyaabaha iska bedelay. magaalada Ceergaabo waxay bariyahan dambe ku soo baxay ganacsiyo aad iyo aad u qurux badan oo cusub. halkan dhex joognaa bartamaha magaalada Ceergaabo. sida arkaysaan halka ay ga dambaysaa Siiroogi magaalada Ceergaabo. waxaan hore ugu socon doonaa magaalada. waxaan soo tijaabin doonaa cuntooyinka wadada, meheradaha dharka iyo waliba meheradaha ganacsi ee magaalada Ceergaabo ku soo kordhaya. ku soo dhawo magaalada Ceergaabo namarsha. halkan ay imika joognaa waa magaalada Ceergaabo bartamaheedii. xaggan waxa la yiraahdaa suuq sare. giimkana imika geli doonaa waa meelaha ay dhalinyarada magaalada Ceergaabo joogtaa ku caweyso. giimkan waa giim aad iyo aad u fiican, waa giim update yani last model la socda. magaaladan aad iyo aad buu qurux badan tahay gudaheedu. maxay hay toole jawiga qabowga marka laga tago iyo yani nolosheeda kale aad iyo aad buu qabowdahay. sidoo kale bal waxaan geli doonaa giimka. halka giimanku magaalooyinka kale mar waxba badan la dhigo, giimkan wax mar waxba ma leh. عنون وليكو قد بحنيو قدر بايسار انت خير ودورك كاقل فرتها حدي لقى قبوه ضمير halkan aynu ka dhex joognaa waa gudihii giimka. sidaad arkaysaan muraayadan iga dambaysa waxaan ka baxay saacadal heesa. giimka dhalinyaro badan baa ciyaarayso aad iyo aad u mashquulsan. waxaan la kulmay laba nin oo dhalinyaro oo giimka ciyaaraya oo chess ciyaaraya iyagoo aan PlayStation iyo waxa ciyaaraynin. bal labadan dhalinyarada baa wareysan doonaa. assalaamu alaykum. Alaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. wadhowahay Subxaan nageersi waxaad ciyaaraysaan. baasha waxa la dhahaa chess oo mid ka mid ah ciyaaraha dunida lagu ciyaaro taasoo kobcisa garaadka iyo caqliga. ka baashan adu waxaan ciyaarayay in sanada waa ciyaaraha favorite-kayga aan xiiseeyo. magaalada waxaan leeyahay dhalinyarta waxaan leeyahay tir way fiican tahay inaad ciyaarto sababtoo caqligaaga way furfuraysaa. waxaan leeyahay dhalinyarta inaad ciyaartaan ba muhiim ah. imika waxaan nimaadnay fast foodka kaliya ee magaalada Ceergaabo sida xoogaa uga shaqeeya. fast foodka magaciisa waxa la yiraahdaa Golden. meeshan waa meherad yar aad iyo aad u cajiiba sida loo decoration gareeyay. qof yar oo dhalinyaro ah meheradan bilaabay oo entrepreneur ka ah. ku soo dhawaada magaalada Ceergaabo. caaw fiidiyogan wuxuu la mid yahay fiidiyowgii gabilay oo kale. waxaan isla soconaa rag aad iyo qaaliya magaalada ku qaali. waxaan isla soconaa nin Maxamed la yiraahdo iyo nin Axmed la yiraahdo. ku soo dhawaada YouTube channelkayga. waan ku doonahay shoode adiguna waan kaaga mahad celinaa sida quruxda badan ee magaalada shaqada adag uga haysay. inkastoo aanay magaalada Ceergaabo aad u kala fogfogeyn suuqyadeedu. hadda imika waxaan soo dhameynay fiidiyowgii aan ka duubaynay centerka magaalada Ceergaabo. markaan halkan sharaab ka cabno oo ku yaranaysano waxaan tagi doonaa meherad aan ka soo cuni doono kibis iyo caano dhanaan iyo sonkor iyo subag la isku daray. cunto aad iyo aad u macaan weeyaan. waa cuntada kaliya magaaladan dhaqanka u leedahay. ku soo dhawo magaalada Ceergaabo iyo cuntooyinkeeda wanaagsan ee freshka ah. Ceergaabo lagama helo wax border ah, waxa laga helaa wax natural ah kaliya.
halkan aan iminka soo galay waa meheradaha laga cuno sabaayada caanaha iyo subaga iyo sonkorta leh. meheradan aan iminka joogno waxaa naloo samayn doonaa annagoo arkayna sabaayadii oo caanihii wixiiba lagu darayo. bal kaale aan ku yar halkan waxaan ku cuni doonaa cuntadii caawa dhan aan idiin soo sharaxayay. cuntadan waa cunto aad iyo aad u macaan. cuntadan aad arkaysaan waxaa laga sameeyey sabaayad iyo caano dhanaan iyo sonkor iyo subag. waa magaalada Cerigabo waxa keliyaata iyadu gaarka la tahay cashooyinka ugu cajiibsan uguna qiimaha badan ee laga cuno magaalada Cerigabo. ku soo dhawow baan idin leeyahay. cuntadan dhamaynaa kadib baan isla hadli doonaa. iminka waan dhamaysanay cashadii sidaad arkaysaan. waxaan ka qaadaynaa malqacadii ugu dambeysay. meheradan aan ka cashaynayno waxaa la yiraahdaa barwaaqo. waxay ku taalaa surud stationery ama surud photocopy sida reer Cerigabo u yaqaaniin aba maqaaxida Soomaaliya soo dhowdahay. waa meherad aad iyo aad u cunto macaan. ku soo dhawaada baan idin leeyahay. qof kastoo Cerigabo imanaya ama qof kastoo joogaana halkan bal hal mar ha soo tijaabiyo. cudurka ka gala fardaha haddii laga gubo dam halkani waa meherada qanciye saaro. meherada ugu quruxda badan uguna dhisaynka wanaagsan ee ka dhisan magaalada Cerigabo. meheradan waxay iibsaa ay shay qof bini aadan korkiisa geliyo rag iyo dumarba. meherada waxyaabaha soo jiidashada leh aad ka soo jiitay diyaarka ku waxa kamid ah magaalada Cerigabo aad buu qabowdahay. haddana meheradan IC baa lagu xiray. sababta loogu xirayna waxa weeyaan jaamka aad iyo aad ugu badan. caaw waxaan la kulanay xilli la sii xidhayay. aad iyo aad u mahadsan yihiin nabada meherada jooga oo inagu casumay inagu soo dhaweeyeen. meherada qanciyan bal idin soo tusi doona soo soco. dhinacan waxa waa saraawiish oo dhan baa ku diyaarsan agabkii dharka ragga. xaggan way khamiisyadii oo wadaadadii caaqiladii dhammaan dadkii dawaayeelka baa ku diyaarsan. dhinacan dhalinyaradii shaararkii waxoodii baa ku diyaarsan. kabihii sportska ahaa kabihii classiga ahaa iyo kabihii sportska isku jira. meheradan dhisaynka kaliya loo diyaariyay wali Cerigabo kama jiro. mana jirto meherad furtay xujada meheradan oo kale. ku soo dhawaada baan leeyahay magaalada Cerigabo especially meherada qanciye oo ku taala centerka magaalada Cerigabo. ninkan waa mid kamid ah dhalinyarada magaalada Cerigabo jooga. magacaawalan magacaygu Cabdiraxmaan Ali Yuusuf. Cabdiraxmaan wuxuu igu yiri ni horta aad baan fiidiyadaada u daawada. aad iyo aad baa saaxiib ugu mahadsan tahay. hal hees ma noo qaadaysaa? والله ورت فنان مهنيو واي صدح شيء صدح نقد في Cerigabo ka sheeg. Cerigabo صدح نقد دفاع ما غلبا ام بس دفاع واي سي wanaagsan hay صدح positive ka sheeg. يا صدح positive horta magaaladii waa magaaladii garansayay xadaarada waa magaaladii jooga iyo garansay dalxiiska weeyaan. qodob baa ku haray qodobka saddexaadna waxa weeyaan waa magaaladii gobolka Weeyaasha weeyaan. gobolka Weeyaasha ma sha Allah. ninkan oo aad iyo aad u fiican aad iyo aad buu mahadsan tahay. waxa isla saddex negative markuu sheego dhiiqaha galo reer Cerigabo ha afduubta masla aad iyo aad buu mahadsan tahay. waxaan galeynaa supermarketka ugu shidan magaalada Cerigabo. waa kan supermarketku waxaan ka soo iibsan doonaa. ku soo dhawaada supermarketka ugu shidan magaalada. salaam alaykum. iska warama ma fiicantiin ma sha Allah. waa kan supermarketka magaalada ugu shidan.
waxaan joognaa supermarketka magaalada ugu shidan inkastoona sharaabka soodaha la jeclayn haddana dantu waxay igu kaliftay inaan supermarketka markaan quruxdiisa arkay aan ka iibsado xabad sharaaba qof kastoo Ceergaabo jooga supermarketkana hala soo booqdo supermarketka magacii Manaar ninkana supermarketka leh magaalada Ceergaabo sida u badan tahay dhamaanteedba ganacsiyada waxa leh dhalinyaro ku soo dhawaada baan idin leeyahay waa imsa walaal midda sharaab shan toddobaatan city saa arkaysaan Ceergaabo badanka waxa laga isticmaalaa dollar oo dadku cash-ka ma isticmaalaan dollarka la isku diraa marka imika lacagtaan diri doonaa daawasho wanaagsan muuqaalka numberkii goolstii sheeg waa 883 baan geliyaa mise 884 521 sida arkaysaan 0.7 imsaad igu tiri 75 dollar baa la dirayaa 0.75 laantuna way shaqeynaysaa laakiin labadaba waa la isticmaalaa qofka ku doonayo diri karaa haddaad doorka diri karayso doorka diray haddaad laanta diraysona laantaad diraysaa wallaahi waad ku mahadsantihiin booqashaadna soo booqateen saanu wax nooga iibsateen waan soo dhaweynaynaa de gobolku waad aragtaa waa shaqeynayaa ganacsiguna waa shaqeynayaa maasha Allah dalxiiskii iyo goobihii dalxiiskana waa leeyahay de gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa ummadaha kale reer Somaliland qof kastoo safara oo Ceergaabo dalxiis yimaadana u sheeg agab kastoo supermarket looga baahnaa in halkan dhexeeyo waa diyaar agab kasta oo qof walba oo supermarket u baahnaa uu helayo sida sharaabadii soft foodski sweetski wax kasta waan ka iibinaynaa gacmo furan baan u leenahay حتى واحد هلا قفك معانتا قبا هدو باهي شوكولاتدي معانتا سنكرتي معانتا wax kasta de war Ceergaabo waa meherada ugu agabka badan everything qof kasta oo uga baahdo qofku uu ka heli karo ku soo dhawaada supermarketka Manaar magaalada Ceergaabo imika halkan aan joogaa waa bartamaha magaalada Ceergaabo halkan waxa la yiraahdaa khayriyada magaalada Ceergaabo inkastoo ay magaaladu qabow saayida tahay oo xilligan dadku ay ka kala dareeraan oo maadaama ay magaaladu aad u qabowdahay dadkeedu hore u hoydaan halkan ay imika joognaa waa bartamaha magaalada Ceergaabo amba khayriyada sida loo yaqaano shirkadan waa Samtel taasoo jeedana waa golis halka iga dambeysana waa Mr Jaamici si aad iyo aad bay reer Ceergaabo u yaqaaneen dhamaantood iyo meel kasta joogan halka waxaan ka salaamayaa qof kasta oo reer Ceergaabo waxa la caaw waxaan joogaa magaaladeennii wanaagsanayd haddaba hal su'aal baan reer Ceergaabo weydiinaya bahashan qof kasta oo reer Ceergaabo oo dhalinyaro u xasuusta markii aan yaray waxaan lagu oran jiray bahashan hadaawanina waa lagu dhintay marka dadka reer Ceergaabo way ka baqi jireen wali ma jiro qof dhalinyaro oo reer Ceergaabo bahasha korkeeda taabtay I hope sidaan rajaynay waxa weeyaan bahasha u qaybisa wireska halkay isugu kulmaan shirkaduhu waliba shirkada golisiiba inay tahay baan filayaa marka barigaan yareen aad baan loogu cabsiin jiray halkan waa khayriyada magaalada Ceergaabo iyo halka waxaan ku soo gabagabayn doonaa muuqaalkeennii quruxda badnaa aynu caawa u dhanduubaynay magaalada Ceergaabo sidan bay qurux badan tahay daawasho wacan qof kastoo aan jooginowna ka bogo magaalada Ceergaabo haddaad timaado halkan bay Ceergaabo ka bilaabantaa waa bartamihii Ceergaabo halka iga dambaysa waa Mr Jaamici halkan waxa la yiraahdaa khayriyada qaadiriyada xagga inaga xigta waxaas magacan idin sheegay waa magacyo caam oo la isla garanay magaalo aad iyo aad u qurux badan waa magaalo qabow waxaan ku jeclaysan inaan habeen duubo waxa weeyaan qabowga jawiga macaan iyo sidoo kaleba inaan meelaha quruxda badan ee habeenka magaalada Ceergaabo iftiima inaan idin soo duubo daawasho wacan wanaagsan qof kasta oo reer Ceergaabo oo muuqaalkayga ka soo dhex muuqdayna halkan baan ka salaamay